waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkan bisinka iyo saliga iyo ayadaha quraan bisinka iyo saliga iyo ayadaha quraan awalu bismillaahi arraxmaani الرحيم بيري بالناس بيري بالفلق سورتها برتا بيري بالناس بيري بالفلق سورتها برتا والضحى والليل والتروينكي والضحى والليل والتروينكي arooska bilowmay rabbiyow badbaadayeel. barnaamijkan aan idiin soo wada daawadayaal ayaa waxa uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore aad uga barateen ee TV-geena ka bixi jirtay. barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhacdooyinka aroosyada Soomaalida ee lagu qabto qaarkood qurbaha iyo sida ay u kala duwan yihiin. waxa laga yaabaa arooska wadanka gudihiisa ama Soomaaliya lagu qabto iyo kan qurbaha lagu qabtaa inay wax badan ku kala gedisan yihiin. waxaan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa arooskii ugu cajaabka badnaa ee wax badan kaga duwanaa aroosyadii hore looga bartay Soomaalida qurbaha ku nool. waxa dad fara badan ay og yihiin qurbaha inay ka dhacaan aroosyo lacag aad u tiro badan oo baaxad leh lagu bixiyo hoteelo waaweyn in markaasi music iyo kooxo la dalbado dabeetana la ciyaaro rag iyo dumarba iyadoo kharashku uu aad u badan yahay. gabadhan soo socota ayaa arooskeedii ka leexisay dariiqii dadka Soomaaliyeed ay mari jireen. marka hore aan soo gudbiyo gabadha magaceeda oo aan idin baro gabadha ay tahay. gabadha waxa lagu magacaabaa Nasra Xasan waxaase dad fara badan ay Nasra u yaqaanaan Nasra Soom. waxay caan ku tahay cunto karinta iyo cabitaanada la isku dardaray la shiido oo ay u soo gudbiso haweenka Soomaaliyeed dhinaca social media. haween aad u fara badan ayaa yaqaana Nasra Soom. waxay Nasra samaysaa oo kale kareemyo jirka lagu duugo oo nafaqeeya. dumar aad u fara badan ayaa xiiseeya oo aad ugu xidhan lana xidhiidha. Nasra Xasan waxa ay ismehersadeen oo isgursadeen wiilka lagu magacaabo Cabdikariim Maxamed Aadan. Nasro maxay samaysaa hadaba? Nasro waxa ay soo jeedisay dhowr qodob oo arooskeedu u ah tiir dhaxaadka. number 1 ama qodobka koowaad waxa weeye xiriyaha qaxootiga ee Kenya Soomaalida joogta oo ay u dirtay lacag markaasi lagu quudinayo 4000 oo qof ama qadal loogu sameeyay 4000 oo qof oo Soomaaliyeed oo aan cidna kala lahayn. barnaamijkeeda oo dadku ay filayeen inay hotel ku qabsato maadaama ay tahay gabadh aad loo yaqaano oo aad loogu ciyaaro ay taana ka leexisay oo waxa ay tiri waa in lagu qabtaa masaajidka Abu Bakr Sidiiq ee Ohio Columbus. waa gabadhii ugu horeysay ee hotel in lagu tumo markaasi diiday. boqolaal qof ayaa isugu yimid masaajidkaasi. qodobka saddexaad ee cajiibka ayaa isaguna waxa uu ahaa meherkeedii oo inta badan dadka loo bartay in ay gabdhuhu yiraahdaan $5,000 $6,000 $7,000 iyo wixii la mid ah ay waxa soo dhan ka leexisay oo waxa ay tiri waxaan rabaa meherkaygu inuu noqdo in inanka ay guursaday oo markaasi ibaro kitaabka Quraanka Kariimka 114 suuradood ee Quraanka inuu maalin walba ibaro ilaa iyo inta aan dhamaysanayo. saddexda qodobba waxay noqdeen saddex qodob oo dhagaha dadka Soomaalida ah ee arooskan ka soo qayb galay ku cusub. bal aan idin soo gudbiyo sheekhi gabadha meheriyay oo isaga laftiisu ka hadlaya qodobadan ay gabadhu codsatay iyo arooskan sida uu la muuqdo. daawasho wanaagsan. ka baryaynaa بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إن أروس كان مانتا وكردق أروس بركيسن مستر عبد الكريم إيو حاوي نصر عبد الرزاق ذاتك مسلمين توفرها بدن وكسو قيب قلينا إلهي تبارك وتعالى دعاء ذين وأقبله سيدا أركيسين قبرنا وحاوي نصر ويلكو هايدا بيو
waxaa bixisay Soomaalidaas meesha isugu timid oo dhan taasi waa arrin tilmaamaysa gabadhan qiimaha ay leedahay anigu si fiican baan gabadha u aqaanaa oo gaar ah waana sababta keentay inaan nooradka ka imaado halkan maanta aan imaado inta badan xafladaha halkan ka dhaca ma imaado sababta waxa weeye waan kala fognahay waa safar yar weey marka ciyaar oo maana imanin gabadhaas intaan ka aqaano waa gabadh aad iyo aad waxa weeyaan wanaagsan oo sharaf badan marka aan saaleeyahay waxaan rabaa inaan dareensiiyo gabdhaha kale oo waxa weeye wadada ku soo jira inay gabadha ku daydaan gabadhaas waxyaabaha aan ku aqaan waxa kamid ah inay aad iyo aad uga walwasho ama ay caawiso dadka masaakiinta hadda waxaan ogahay arooskeedan inay ku bixisay lacag aad u tiro badan dadka masaakiinta oo jooga Soomaaliya especially qaxootiyada kuwa jooga dad gaaraya 4,000 oo ruux ayaa waxay u dirtay lacago si arooskeeda iyo farxadeeda ay u soo duceeyaan waxay awooday inay waxa weeye hoteelada waaweyn ay kiraysato oo dadku maaragtay waxa weeye ay kiraystaan hay'lay waxa weeyaan waa gabadh karti badan oo awoodna u leh inay waxa weeye iyadoo kaashanaysa wiilka guursanaya oo sharafta badan inay waxa weeye kiraysato waxay ka doorbiday inay masaa'idka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kow lacagta ay siinayso hoteelka inay masaa'idka Ilaahay siiso laba waxa weeyaan lacagta ay hoteelka siinayso oo waqti yar gudihii laga yaabo lacag badan inay uga baxdo inay masaakiinta waxa weeye jooga walaalaheeda daafaha adduunka inay siiso waxa kale oo ogahay inay madraso waxa weeye ka aasaastay meesha la yiraahdo qaxootiga dhadhaab xagar dheer oo dhadhaab meesha oo dhammaada xagar dheer waxaa dhigata ugu yaraan waxa weeye 60 ilmood ama waxa weeye 57 ilmood hadii aan waxa weeye ama 8 meelaha taqriiban inta aan xogtooda hayo macallimiinta waxa weeye dhigta ayada bay garays ardadaas ayada bay garays gabarsa wadanka intay joogtay in yar oo kooban waay laakiin waxa ay ku fakartay wax dadka xataa ducaada oo xataa waxa weeye diinta faafinaya ayna ku fakarin waxyaabo fara badan oo xataa culimadu aysan qabanin ay waxa weeye qabataa halka waxaad ka fahmi kartaa dadku hadii uu ruuxu waxa weeyaan uu jecel yahay in uu ummadiisa anfaco inaad anficin karto is oranin waxa weeye wax ma qaban kartid kaliya baa wax qaban kara hadii aad Ilaahay tala saarato subhanahu wa ta'ala oo aad la timaado waxa weeye kartideeda iyo waxa weeye dadnimadeeda ruuxa muslimka ah waa ruux waxa weeyaan dareenkiisu mar walbaba uu ku xiran yahay mujtamaciisa inaad kaliya iska noolaato ma wanaagsana hadii aad gabar tahay ummadda waad anfici kartaa hadii aad nin tahay ummadda waad anfici kartaa hadaad oday tahay ummadda waad anfici kartaa hadaad dhalinyaro tahay ummadda waad anfici kartaa maxaan rabnaa marka gabdhaheena iyo wiilasheena inay ku daydaan gabadhaas iyo wiilkaas oo tusaale waxa weyn oo ah maxaa yeelay tusaalaha fiican waa lagu daydaa waxa xunna waa la iska ilaaliyaa dadka hadda inta badan waxyaabaha aan macnaha lahayn bay iskaga daydaan laakiin ruuxa waxa weeyaan wanaagsan oo in lagu daydo mudan kuma daydaan sababta waxa weeye inta badan dadka shaytaanka ayaa waxa u qurxiya waxyaabaha ay ku jiraan wazayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum waxyaabaha fiicanna uu xumeeyaa marka gabadhaas aan ku dayda waxa kale oo muhiim ah oo in rabeen aan ishaaro gabadhaas meherkeeda waxa ay ka dhigtay quraanka kariimka inuu baro wiilku quraanka inuu baro waana sunno waxa weeyaan xilligii nabi maxamed ba jirtay calayhi salaatu wasalaam xasleenahay waxay soo noolaysay sunno wanaagsan oo laga tagay macnaha gabdhaha hadda jooga hadda ka hor baa anoo jooga meel la yiraahdo Tanzania masaajid sidan oo kale joogna ayaa gabadh Indonesiana ayaa noo timid aniga wadaad kale oo masaajidka jooga nin bay wadataa marka iyo waligeedii iyo waxba isku qoofalan wadata markaasaan meeshaan uga socdo waxa weeye waxaan niri meherkaagu waa imis waxay tiri $10 way $10 ayaa lagu meherinayaa way tiri aniga sheekhi hoostaan iska fiirino waan yar waan qosli gaarnay hadda dad yaani wax meerinayaan ma qosli karaan waayo wax nagu cusub ahayd sheekana nagu cusub ahayd waxa ka sii dareed markuu meherkii u dhacay oo ninkii uu qabiltu yiri ayay gabadhii ooyday way ooyday mas'ala kale oo cajiib ay nagu noqotay markii hawshii dhamaynay baan waxa weey ninkii la socday baan gaar oo gabadha maxay looyaysaa aan kun kaasoo farxad bay looyaysaa maanta inay heshay nin wanaagsan oo guursaday macnaha innagana maalinkii loo meeriyay kuleetay ku dhig ilaahay maqaadirtiis waa wax la yaab leh farqi macnaha waxa weeye iyadana waxay ku faraxsan tahay inay maanta ninka wanaagsan oo xalaasha ay heshay waxyaabaha loo baahan yahay bulshadeena inay dareemaan gabadh ay ka meher yar tahay in ay ka baraka badan tahay gabdhaha marka waxaan rabnaa tusaale gabadhan u noqoto maxaa yeelay
meherkeeda waxay ka dhigtay inuu wiilku qur-aanka baro laba arrimood labadaba tusaale way kugu tahay horta ninkaad guursanayso ha noqdo nin qur-aanka yaqaana ilaa nin qur-aanka ba aqoon haddaad tidhaha qur-aanka bar waxaa weeyaan waa jugjug halkaa joog maad jirteen wax faa'iidaa ma lah kow waa inaad ka fakarta marka hore maxaa yeelay reerka aad rabto inaad dhisto inuu kuu dhisnaado aad rabto waxaad ogtihiin hadda dhibaatooyinkiina iska badan yihiin maxaa keenahaya marka hore wadadii saxdeed laga leexanaya halkaas marka waa in dib gabdhuhu ay u noqdaan gabadha ay tusaale uga daydaan xagga diinta nin dhalinyaro ah oo aad u wanaagsan diinta kuwa fiican maadiga yaqaan يعني وحاول شقيسان هيا كرتي أوله أي كلا صار بحضي رجي سومالي أنت ساو فيرسي يساو صار بحضي سوجوز كرسات مساسو كلا مركل لو بهاي نينك أتجورسان يسو إن نينك أسمع ركت وحاول عمامة إيو حسابه ما ركت عرب تلوي كان عرب كوا هتساو صوت وكرسات على جربا ده كلا بلاي كلا تيدا أو ما ركت يسيدي مركو صعدو رواي وصعد صار سوجوز كرساتو هذا اسمه ماشى قدام بين يسمرك سيدا أنت أسمرك وحاول يهن وهردعة أرنتن ما أنت أن ماشى أنمت أو جبردا وحاول يهنا تصالك بحيه سيدا كلا ويل كوا جبردا ويل أردك موايه أو ما رتي جيان كذا وأخلاق الدين إلهي سبحانه وتعالى وحاول يوسيه أو ضد ونعكسن أو شرف لنا وحاول كذا شيء وضد كل يري حلسيه أولياء مركل له داعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله. جزاك الله بالخير شيخ زيد. إلهي أن نقع فوائدها قرآن كها. waxaan u fadhinaa maanta insha allahu tacaala meherka ka dhacaya masaajidka haddaan idin baro wiilku waa cabdilkariim moxamed aadan gabadhu waa nasra cabdirasaaq cali naasir insha allahu tacaala hadda waxaan ku wareejin doonaa sidii dhaqanka ahaa dhinaca wiilka maxamed ciise nuur indhoos oo insha allahu tacaala gabadha dooni doona hadduu ilaahay yiraahdo falyatafadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن فلا دمانتين ومانتين عن سوون نمت أرين أن أوجب أهين سجرين دقني عادة أن أقول لنا هاي وأب كيسرة تاسوا سيد عادة هذي إن أنا سكتنا قبلها سنو جورنو أنا وكوه الله يمجع ويلكا أهنا أضيق ويلكا متلايو وعن تلك قاعدين عكاه كعد سنة ويدي سنة يا إني نسيان أنا وكله مجاعة ويلكي عبد الكريم محمد آدم جبدة نصر عبد الرزاق علي الناصر نصر ما أهن علي الناصر كلينا وهو
waxaan aad ugu faraxsanahay inay weli wadato magaca uu heliyo Nasra Soom taas oo matalayso kana taagan inay tahay gabar Soomaali weyn oo dhan u dhaxayso anigoo weli codsigayga sii wadi doono bal marka ugu horeyso aan ku soo gaabiyo xagga qoyska ee familka ee gabadha ka dhalatay kadibna aan soo noqdo Soomaali weynta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إن شاء الله تعالى وما سيهاي محمد عيسى نور هاتنا وحنكون رجينا عقبنا إن شاء الله تعالى الشيخ محمد محمود فليتفضل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفتينا يتينا وحا أدر دار ما هي تقوى إله أيا غير لغو غارة هذه الأساس هي يقول عصب يهدو قديم يهيبه تقوى إله با غير لغو غارة مركز دمانتين يا أيها المسلمون يا أيها الإخوة وحي حاضر دار ما هي تقوى إلهي كبعدي ومهسيهين سيدا شرفت له وعزق له وغرابيسان وينو ويديستين قبرنا نصر عبد الرزاق ينو ويديستين أولا ويديين عبد الكريم محمد آذن أيضا شرفيسان إهليسان معنيسان مقع أي وضطه يا مقع إسلام كماشة في إسلام كفرية ودن أيام قبل أن كسيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله مفروض وإنك قدوني وعن سكروا إنك عصرنا إن قبل مهر كذين نوجد درتان نعرف سعدان إن شاء الله طلبات وحن بدوينها مش سوي مذا جوجا ما أنت كعصنا يا الله فهان تودا إني نوفس عن قبله إن النصيان إذا كوا كانوا قبله مد يقوس كليه بحيان بس مد مسلمين تا يسمع وين أي بحسين النقط وعنوبا أنا عدكين هنا مقالله إذن كل واحد نسيمه ما شاء الله إلى إذن بركة وأنكم هستين نودر أمريكا إن شاء الله يا شيخ محمد وكذلك سيدا سوكله أعطوا بحسين بعوض بحني إن شاء الله وهذه المرة دي وقبل بحين تدين لسي مهر واحد يستوى واحد سكير جابن قبل مهر كذي وإذا كقدر إن شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله بخير إن شاء الله تعالى. هذا وحنا ميكروفون كورجنا يا فضيلة الشيخ مختار. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول المولى جل وعلا في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شيخ رالي وقت تسمع أنا أمرنا قولي أوكي مستر عبد الكريم زوجتك وأنكحتك بالنصر عبد الرزاق علي ناصر بوكالة ولي آياية ومقدار مهرها بتعليمها تتعلم بها بالقرآن أو بكتاب الله تبارك وتعالى. أقبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر المذكور؟ قل قبلت. مستر عبد الكريم محمد آذن وحنكون قوريي كبرد اللي هذا نصر عبد الرزاق علي ناصر وولي هذا وأبي هذا ويوكي شيء إن أنكون قوريو مهر كيدونا وقرآن كائنات برتو كتاب كإلهي إنات برتو وأنكون قوريي أرنكاس أنكون قوريي ما أقبش بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهم. تكبير 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 الله أكبر.
إلهي تبارك وتعالى وحن كبرينا بأسماء الحسنى وصفاته العلى إنه سبركيو برواقو يا بشبش يا نعمة يا خير يا وحوي رحمة يا سكينة يا طمانينة يا أنرجينا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته arooska gabadhan oo ay hambalyo u direen fanaaniin fara badan wariyaal iyo dad bulshada caanka ah oo Mareykanka iyo meelo badan kala jooga una tahniyadeeyay arooska Cabdikariim Maxamed Aadan iyo Nasra Xasan oo Nasra Soom loo yaqaano ayaa waxaan idin soo gudbinayaa ugu dambeyntii buraanburadii iyo markaasi arooska iyo aroosada oo iyaguna dhex mushaaxaya masaajidka Abu Bakar Sidiiq ee Ohio Columbus waxaanu soo ururnayo waanu nimid caawa waxaanu soo ururnayo waanu nimid caawa nasra soomarooskeediyo arana jiroye nasra soomarooskeediyo arana jiroye nasra dawlad weeyaan arooskan u soo digaye nasra dawla weeyaan arooskan u soo digaye saygay istorteen ayaa loo dabaaldegaye saygay istorteen ayaa loo dabaaldegaye murtidaan ku soo diiqay baan idin dareensiine ishaarada abwaanu ku dhaho ereyga suganta ishaarada abwaanu ku dhaho ereyga suganta hadduu urfayow yahay ilaah waa aqbalayaaye aroos waxaanu mulawiilayo udubkaan taagnay aroos waxaanu mulawiilayo udubkaan taagnay asaaska gurigiina iyo ubaxaan saarnay waxaa lagu maamulayna waa alifkii diimeede waxaa lagu maamulayna waa alifkii diimeede albaqriyo nisay culimadii ni aqrinayaane aqalkii saldhigaye khilaaf abidkii samaynin aqalkii saldhigaye khilaaf abidkii samaynin diinta lagu saacidiyo ehelka Soomaali salaadaha dhexdii lagu tukado lagu sujuudayo oo ubad sagaaliyo rabbigay sabadka u buuxsho oo ubad sagaaliyo rabbigay sabadka u buuxsho nasra soom sagaal dhaan sinjina sadama riixana oo qurux sirad baxaya iyo sagal aruuryada saygeeda gursaday ragbu ugu sareeyaye sadilaygay ku qoraan abid ku segayne sadilaygay ku qoraan abid ku segayne ilaahay wuxuu ku sajalay sahan dambu imane gursaynadiya qurux la soo satir ma jibin gursaynadiya qurux la soo satir ma jibin sinji waxaan nasra u dhalatay iyo dacadiya xooge dun xariira weeyaan khalqigu dabirka la roone dun xariira weeyaan khalqigu dabirka la roone wiilkuna kasii darananana waa u dareen qabay
inankuna kasii daran aniguna waa dareen qabay arrimaha bulshada baad nasrooy u igmaanaydeene arrimaha bulshada baad nasrooy u igmaanaydeene ololaha waxaad ugu jirtaa waa agoon korise ololaha waxaad ugu jirtaa waa agoon korise ajiraan dhammaan iyo ducaad urursanaysaay ajiraan dhammaan iyo ducaad urursanaysaay insha allahu guriyayaloo aranu noqone astaamaha ka muuqdaan wanaagu ergaanaynaye insha allahu bad khayr qabo insha allahu bad khayr qaba imanayaan dhowe insha allahu bad khayr qaba imanayaan dhowe gurigii anfaca buu ahaan idilka Soomaali islaamkana u furane dhammaan ku istariixane gurigii anfaca buu ahaan idilka Soomaali islaamkana u furano dhammaan ku istariixane waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkan bisinka iyo saliga iyo ayadaha quraan bisinka iyo saliga iyo ayadaha quraan أول بسم الله الرحمن الرحيم برب الناس برب الفلق سورة برتا برب الناس برب الفلق سورة برتا والضحى والليل والتروينكي والضحى والليل والتروينكي أروسك باللوم ربي وبدباديل الدعاء برار وين وعركم بحد السلك دعاء برار وين وعركم بحد السلك بدي وبياشا إيو بورها بكوين عمود سيدت وبدان وانباقانين بارك الله ديها يوهو لبغان وضنا أروسك باللوم ربي وبدباديل cabashadii nabiga cumar oo rasuulku yiri alayhi salaatu wasalaam cabashadii nabiga cumar oo rasuulku yiri cilama oo noqoni nabigii cirkoo kacay culuma garab taagan iyo caaqila oo kacay ducada caynkaas cawaatin Allah ka dhigo quraan alif baa weyn hadalla wacan oo inta afka yeerta ashahaadada macaan oo intii Allah uumay nabiyadana walaha annana ummadiisi ashahaadataynu nahay ayaan badanay islaamka daruurisaa alleylehe ayatihinkaagu male dhaliil cabdiyow cirko koo dhaldholko malabkoo rakee cabdiyow cirka koo dhaldholko malabkoo rakee
oo dhunka midigtaada oo meel walbaba ka dharag oo dhunka midigtaada oo meel walbaba ka dharag laba aan kala dheeran rabbigay ha idinka dhigo shareecadu sidii ay sheegtaad ku saxantihiin annasrooy wada dhaqmada oo dhalidima galo nasrooy wada dhaqmada oo dhali idima galo dhalaan kala hela oo goorkiinu dhaxalgal noqoy dhalaan kala hela oo goorkiinu dhaxalgal noqoy laba aan kala dheeran rabbigay ha idinka dhigo annasrooy waa ku duceeyeen dadkii ku dhalay nasrooy waa ku duceeyeen dadkii ku dhalay ducadu madulowda maduuqowda way duxdaa ducadu madulowda maduuqowda way duxdaa sida daruuraha cirkehayso dabaalataa sida daruuraha cirkehayso dabaalataa ubadanka raagin isku nug allow ku sii ubadanka raagin isku nug allow ku sii mataaneeyo arooskiinu miraha dhalo ducada aan tirinaya hadayen baan cuskaday ducada aan tirinaya hadayen baan cuskaday caruura inaad dhashaan caafimaad heshaan caruura inaad dhashaan caafimaad heshaan adiya saygaaga ku caaweya nolol carfoon oo waa isku dheeg waa isku dhaqan wayna wada dhasheen oo waa isku dhiig waa isku dhaqan wayna wada dhasheen ubaxi Soomaali weeye alloo wadkee ubaxi Soomaali weeye alloo wadkee allow ubad badan dinsihiyo nawada anfaca allow ubad badan dinsihiyo nawada anfaca intina imaqlaysoy ahaaminta igu daraa عسي شرفيو أمان عذي هوذا عسي شرفيو أمان عذي هوذا عنده قصو صاري عرب كي قصو بندقي عنده قصو صاري عرب كي قصو بندقي عمل سنة يبايو أيان عوكو سدا دعاء عبد واق كتميد علكي دعاء قذا كاقا تميد قسكي عبد واق دعاء قذا كاقا تميد قسكي عبد واق تاني يبار ديري بلد حو بلد كاللوق تاني يبار ديري بلد حو بلد كاللوق تاني قربها راليهي قبل قدود تاني قربها راليهي قبل قدود وحاسو تيري اهلك قتير ذبضا وحاسو تيري اهلك قتير ذبضا ترنقو بعدي كنوه لذنول التوين cadceedo casarkii ohow roob cirfaha ka maray dhulka cagaar hore lahoho ceelka geeya helay oo xoolihii wada dhaleen caanihii la dhamay xareedu dhulka wada cadeeyson culaadu jirin cimiladeediyo wanaageeda lala cajabay
oo caawa gaafkiinu tahaasoo la caynad yahay ee guul allaan ku dirnee guri nabad la galaa 18 jir quruxdeedu saamid tahay 18 jir quruxdeedu saamid tahay oo xinfaneen laga baxshiyo isugan lagu xarbiyo daqsiga xaadeeda tahabtana xariga yahay cidigi dumarkoo dhan adaaxaas lagaaga dhigay ee dhankii loo dhigaba dhamaac weye gabadhayadu ama dheero magaabno galoolkay la foormid tahay gugeedu ma weyne garaadkeedu waa tamaan timuhu waa geeya midabkeedu waa gadood oo way dhammaystirantaho yartumali dhaliil ee dhankii loo dhigaba dhamaac weye gabadhayadu gabar lasoo xulayu xaadeedu tahay gadood gabar lasoo xulayu xaadeedu tahay gadood intiisa lagu xididay laga dhibay xoolo badan intiisa lagu xididay laga dhibay xoolo badan ninkii saxiirkeeda garanaya meher ku xiray ninkii saxiirkeeda garanaya meher ku xiray ayaan badanow adeeyo ridaada tahay ee dhankii loo dhigaba dhamaac weye gabadhayadu oo cabdi caynkow yahahaan ku cadeynayaa faciis darbi jiif daruhoogayu badan yihiin oo damci maayaan inay reer maamushaan oo damci maayaan inay reer maamushaan 10 markow joogay bohow taajiroo tabcaday 10 markow gaaray bohow taajiroo tabcaday allaha taban taabsha wiilkeeni waa tashaday oo wiiltalkee taajir yahay oo tilmaaman yahay oo wiiltalkii taajir yahay oo tilmaaman yahay talaada loo dhiibta taariikhda lagu yaqeen talaada loo dhiibta taariikhda lagu yaqeen haweenka tixgaliya bahataash lagugu xiray haweenka tixgaliya bahataash lagugu xiray allaha taban taabsho wehelkeeni waa tashaday oo aabbaheed waa ugahaas waana eheludiin oo aabbaheed waa ugahaas waana eheludiin oo hooyadeed wali ma tageen meelan deen lahayn oo hooyadeed wali ma tageen meelan deen lahayn awowayaashii horahayatii wacnaa abdiyow abtiyaaladaha waraga maraweyn cabdiyow abtiyaaladaha waraga maraweyn oo ree adeerkaana ifkaa looga dhigaya meer oo reer adeerkaana ifkaa looga dhigaya meer oo ori laga yaabay behey ku aroosiyeen oo ori laga yaabay behey ku aroosiyeen cilla ma joogtide allahow caafimaad ku sii gabdhaha reer sade waxay gaaru leeyihiin gabdhaha mareexaan waxay gaaru leeyihiin goore carfoo gogol qabo howshayga garasho mudan
guri carfoon gogol qabow sorya gobanimale oo ninkii goorsada banaanka u istaagaya midkaan goorsanina oo horkow ka gobanaya barabagaar maan rabeeyaygu beenin karaa rag baa kasoo doonay tohon moonaya aabaheed rag baa kasoo doonay tohon moonaya heladeed oo dollar dhiibiyoy lacaaq deeqdaya heladeed adaysa kaa doorato ragu darajo weyn adaysa kaa doorato ragu darajo weyn adna maduulow midkii yarta deeqay noqo oo nasra quruxooyadaha raalliyeeyahayd oo nasra quruxooyadaha raalliyeeyahayd daris ma riixaynin reexan janeeyahayd daris ma riixaynin reexan janeeyahayd adna inaad raacsanaata laga rabaa asbaabta jacaylka goortay dadkooy sarkaan asbaabta jacaylka goortay dadkooy sarkaan markay yaxdi meel dhigtaan oo isaaminaan ayaamaha hore markay aad wada hadlaan markay yaxdi meel dhigtaan oo isaaminaan jacaylka dadbaan aqoon oo ka rida indhaha jacaylka dadbaan aqoon oo ka rida indhaha idinka waan idin aqaan waad istaahishaan idinka waan idin aqaan waad istaahishaan ubixi beer miyuu jacaylkaad abuurateen ubixi beer miyuu jacaylkaad abuurateen ilyaadyow noqonin ilmaadeeradaynu nahay jubbada hoosiyo webigaan jin qaboojiya jubbada hoosiyo webigaan jin qaboojiya janaalihii jooga yarkow jaamicigu dhalow janaalihii jooga yarkow jaamicigu dhalow jalaqsan gabadheena yarkay jebka ugu jirtow jidkaasan laga baqa hayahaa jaahilina ogalo warjib ha lagu qaadoy baaburta jabiyale marbaandheedhiyo marbahaadhigu labay tegi marbanse dhuuxiyo lafahaa dhaawac moodayaa marban dhalaalaha sidihii saafi subag la shubay marban dhalaalaha sidihii saafi subag la shubay dhawaaqa laylka soon maqlahaa dheemaniga wacaa xabaa ka bilaabay xaraagole waa kitaab mareexan markaan maqlehay xadooyga kacdaa xubnuhu ee kala baxaan xaaladaha fahmaa xubnuhu ee kala baxaan xaaladaha fahmaa ilaahayow xaakinow xaasidkooda jebi oganya leegleeganehayso nin ladanu dhalay oganya leegleeganehayso nin ladanu dhalay oo laafyihiiyo kubabku rago ayoo laab kaceen oo lansaraad gabaarabaha hoy lagoo dejiyey oo lansaraad gabaarabaha hoy lagoo dejiyey oo nasroy rag la hubo adehay raalli kaa yihiin oo nasroy rag la hubo adehay raalli kaa yihiin gabdhaha mareexaanka sanaadyaa la raadiyaa
gabdhaha mareexaanka sanadiya la raadiyaa waxayse dumar kale ku reebeen dadnimo rasmiya waxayse dumar kale ku reebeen dadnimo rasmiya fikir laan meel fareeso talefaca fikir la-aan meel fareeso talefaca ana safaanfaanka iyo ikaga filan faca ana safaanfaanka iyo ikaga filan faca ana safaanfaanka iyo ikaga filan facay allayleheyna adeertima waa cajiib allayleheyna adeertima waa cajiib caqli ninkee leh codkeygow ka garanayaa caqli ninkee lih codkeygow ka garanayaa oo nasra guurkeeda sabarkan u xiranayaa oo nasra guurkeeda sabarkan u xiranayaa haddaanan koogabaya terengerigu ogow haddaanan koogabaya terengerigu ogow dhalasha ma wadaagno dhiigaagu igumayaal dhalasha ma wadaagno dhiigaagu igumayaal afkay haddaan fayda oo horkay haddaan furfuro anoonsan ibni aadan naflaagadaa la rabin aqoon gaabtoo dhanbahaayada iga tirsani nasroya maantaada aflaagada uma ogoli ambilaalkoo curaya midaadankaado bila bishaara ku xigsiiya badriyo waxbadan la sugin bishaara ku xigsiiya badriyo waxbadan la sugin bareeya naxariis la badaankiina laga aboor bariya naxariis la badaankaga laga aboor ambahdee soomaaliyeed caawa soo baxeen ambahdii soomaaliyeed caawa soo baxeen bulshada intii idin jeclahayd soo banaan baxeen baluglow calankeeni bahaa boos walbaba la suray baluglow calankeeni bahaa boos walbaba la suray oo bahdi reer khayra wahaa soo banaan baxeen oo bahdi reer khayra wahaa soo banaan baxeen baluglow calankeeni bahaa boos walbaba la suray labada bilan oo isdoortow barwaaqa helaa andumaashigayo wahaan ku dardaarmayaa dumarka waladaada shahaadaca loo noqdaa dooshooda la ilaaliyahayo la baarin dagaal oday maluul waxaan ahaa inaan dibnoho ku oran inaadan diideynin dooqeedu waxu calmado dalxiisu kaxeey markay daala kugu tiraa sidee dahabhaw hilaacdo la daawadaa darisku haysku sheega inay dulduceysan tahay dadkeedana soo dhaweeyo bulshada tixgeli qofkii ku soo booqda inuu baafiyaa wanaag risaaladee gabayadahaan kugu shubi rikoor waxaanse ku reebayoon raalliyoy kooran waxaanse ku reebayoon raalliyoy koeri rixinka ducadiisa rabbigaya kow rakibo waxay hooyadeed ku tiri war wiilka ila xididayohow xoola kaama rabo war wiilka ila xididayohow xoola kaama rabo xaraga laban laaban iyo xoola kaama rabo
malyaaninaad isiisoy waxaa maldhaniga roon malyaaninaad isiiso waxaa maldhaniga roon inaysan madluumin gabadhaydu maalin qura waxay hooyadii ku tiri markuu cabdi ii dhasho igu dhacay gacmaha markuu wiilku ii dhasho igu dhacay gacmaha johorad baan helay jaliilkayna waa ogaa johorad baan helay jaliilkayna waa ogyahay mandheey wiilkayga qariyo quraama saar on sharciga raallinimada baan ku sharaxahayaa sharciga raallinimada baan ku sharaxahayaa uu qoys markaad noqota qeyrika la weheshadaa oo qoys markaad noqota qeyrika la raadiyaa qaladka waa laga fogaadayo qodobo badan qaladka waa laga ilaalsha yarkee ku qaba marka wisqaadqaada waa loo qaboojiyaa qaylada badan bay haween qaymo uga dhaceen habayo nag wareegta reerkeedu meherad male habayo nag wareegta reerkeedu meherad male dabayshaa qaada geedkan dugaan lahayn raguna dumarkooda fududaada way furaan caqli taamiyo culeys baa laga rabaa ooyayna soo gaarin gabaarya ka goorsan jiray ooyayna soo gaarin gabadhooda goor xumaa hana soo gaarta goobtii gabdha mau hareen arago marbowsheena sheehaynaynintou shakiyo rago marbowsheena sheehaynaynintou shakiyo oo shafka taagayo shaagu ma dhadhamo oo shafka taagayo shaagu ma dhadhamo shamsun la joogiyo sharuudiisa lama dhexgalo halkuuse shaydaanku kahaa daaran waxiga sheeg masayrkan la sheega maskaxdada yousan galeen ayaraalay waa laga irdhoobaye dablahow oo gaari gabaraan ahahay waa la garamaraa oo geesi ina hooya uurku ka gubanayaa habaya saygaaga saraajoga ugaadeeg haddee wiilku goorsado horeera kale askumo hadduuse wiilku guursado horeera kale askumo rag iyo micnadiisa min weynay haddou ku dhaho rag iyo micnadiisa min weynay haddou ku dhaho hamase maasaynin maskaxdada taamka yeel hamase maasaynin maskaxdada taamka yeel mareyd hawaasin howrka maganka yeel oo tii kaley murigi heheysaye magac ka reeb arooska gabagabaadii bohow geeska saaran yahay halayla qaadqaaday ammaantoodan qaaliga halayla qaadqaada ammaantoodan qaaliga halayga gaarsiiyoy gacaaltooyadaanu qabo macaabiishii isjeceel way ismaamushaa martidan oo timidna mahad baanu celinayaa meenanka dhex mushaaxa mulkii baadu leedihiin
haddana macsalaama kheyr wayno mar kale. الرحيم والذاريات ذروا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا. والله وأنا بأوفر حسناي أنا والنمعة ولا ماشي عرور بعيد قتال لو عنوك إيه والله أحبرشة مش نقدر كفرت عاد بنا أوفر حسناي عاد بنا أوفر أو أنا أوفر حسناي أحبرشة مش نقفره والله عاد بأوفي عين عرور تويش واحد بيكبرنجرين لكن الدهاد أحبرشة مش نقفره عاد في عين وأنا أوفر حسناي سكون بحبر مايان أولير كريم والله هدوا دوس في عن دوسين قبل هوا بس أنا غير الهسيو أبي أو ما تصنتهاي طيب والله شيء نصر غاد أوفر حسناي عروس كذا الله كسي أولاد بركيسن وقيريسن وأنا شلون اللهم بلينا ودعينا ولا شيء نصر أولاد قيريسن بان إلى ورجينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وأنا كين عثمان إبراهيم أنا جوا حجر دير دكسي قاعد أنا أوفر أحسن هاي قولي دنا عن محمد مولود هذا يا وقف يستا قرآن كريم كه غير الله سيو قبل إنه أساسنا تاسم كسلام يا تاس برشلونة هذا يوين أحسن هذا يوصل وصل ودنا ولا شيء نقول تصير عنهم قليلنا أولاد باهي أو نكسر أودين توشق صوصار فينا إنه الله سيو تاسنا يا من الله بلينا. معي جواب مع الأبشر نور عبد الله رشيد مرحبا والله كل كوجر وحمد عليا مصر الصوم يعني محمد عليا waxaan leeyahay araskaaga waxaan noqdo mid wiil yaana insha Allah wallahi dugsigan waxaan darsigan hadii aan hor u galo waxay tahay darsa agooma loo furay sayto waxa dhigtaa arday aad iyo aad u tiro badan oo agooma oo qaarkood isugu jira kuwa agoona iyo raja qaar waxa jira raja oo agoonta aan ahayn oo aabaha u nool qaar waxa jira agoona laakiin wayda u nooshahay سيته أنت بدل ما وصل قابلني هذا أرديد ما شاء الله جوي ولا أدي أدي ودقيني مركب بالله ويني أدريمي كرتا إن أردي هذا مركب يلي هاي أو مسكح سيرت هاي ومركب لو كنا أدرتين سيد ما مريجا وخلينا رانك وشتت ضحف دسيست ويسكير لبنتها لا يدرين كي أدي خير سريع وحماسة لي هاي وحضرك يسمى مش عروسك مناقف يسوي ماتي أو نول بدرين كيس أموجينيا قاشة dadka waxbarashada ay siisay iyo dadka hadda haminay in ay ku soo biiraan waxbarashada oo qaba baahi waxbarasho aad iyo aad nin walba dareenkiisa marka aad fiirisid qof walba ka hor imaado Nasr Soom iyo magac afkiisa ku haya qof walba oo ka hor imid wuxuu ku leeyahay arooska Nasr Soom halku ku yaala guriga warigay meesha aan tagay nin walba hamigiisa waxa uu hami yani dareen binaadan galin wallahi billahi gabadhaas waxaan ku ammaanaa dadka shacabka aad iyo aad Soomaali qaasatan Soomaalida Soomaali waxaan filayaa inaad aad uga hesheen qodobada ay soo jeedisay Nasr Xasan oo Nasr Soom loo yaqaano arooskeedina ku dabaqday in uu hanaanka aan idin sharaxay uu ku socdo waxaan filayaa in gabdho badan ay tusaale u noqoto oo ay dhinaca khayrka iyo dhinaca diinta ay ka eegaan guurkooda iyo arooskooda oo ay ku qabsadaan meelaha munaasibka ah iyagoo markaasi badbaadinaya lacagta faraha badan leh ee kumaankumka kuna u baahan in ehel iyo qaraabo iyo dadka Soomaaliyeed la gaarsiiyo halka gacanta loo gelinayo hoteelo waaweyn iyo hoolal lagu qabto aroosyadaasi tani kulanka dambe barnaamijkan kala daawadayaal inta dib u kulmi doono waa cali xaraare oo dhamaantiin badi kaga tagay sidaa iyo nabad geliyo